halkaad naga dhagaysanaysaan waa radio Boorama oo aad ka dhagaysataan muujada FM 102.7 FM sidoo kale waxaa laga daawanaysaan Somali Canadian TV aynu gudagalna mawduuca isbarbardhigga hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya maxaa ka dhigaya haybad qaran mid ka tarjumaysa dareenka shacabka Soomaaliyeed waxaa soo diyaariyay faaladan Yuusuf Saciid Xirsi ama qormadan taariikhda 29 Juun sanadka 2026 waxaana uu ku bilaabay sidan siyaasadda Soomaaliya waxaa muddo dheer hogaaminayay siyaasiyiin khibrad badan leh kuwaas oo mid kasta uu leeyahay taariikh aragti waliba qaab hogaamineed oo isagu u gaar ah Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka haddaynu ku bilowno waxa uu lahaa khibrad siyaasadeed oo sare xiriir wanaagsan oo caalami ah siyaasad degan hase yeeshee taageeradiisa shacabka qaar waxay u arkaan mid aan si ballaaran u fidin xasan cali kheyre waxa uu ahaa nin maamul wanaagsan dib u haweyn dowladeed dagaal ka dhana musuqmaasuqa waxaana lagu ammaanaa hufnaan maamulka inkastoo qaar ay dhaliilaan in qorshayaal qaar aysan dhammaan cabdi faarax shirdoon saacid waxaa lagu tilmaamaa siyaasi tanaasul badan is-afgarad iyo weli wada shaqeyn awood xisbi oo kooban marka loo eego qaar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu tilmaamaa khibrad dowladnimo oo dheer dhismaha hay'adaha dowladda xiriir caalami ah waxaa sidoo kale uu la kulmay caqabado amni weliba khilaafaad siyaasadeed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay khudbadiyaqaan wanaagsan taageera dib u habeynta dowladnimada waxa uu soo jiitaa dareenka dhalinyarada iyo weliba aqoonyahanka Soomaaliyeed laakiinse waxa uu wajahayaa caqabado ballaaran oo dhinaca taageerayaashiisa ah Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu door muhiim leh ayuu ka qaatay marxaladii kala guurka waxaana lagu yaqaanaa isu soo dhaweyn weliba mid tanaasulka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu yaqaanaa sumcad qarannimo taageero badan oo dhalinyaro ah xoojinta dowladda dhexe muddadiisa waxaa sidoo kale jiray khilaaf siyaasadeed iyo weliba muranno doorasho isbarbardhigga haybad qaran haddii haybad qaran ay ku dhisnaato midnimo Soomaaliyeed dowladnimo hufan la dagaalanka musuqmaasuqa hoggaanka dhalinyarada karti ku salaysan xilalka siyaasad loo dhan yahay horumar dhaqaale waxay yeelan kartaa fursad ay kaga duwan tahay xisbiyada ku tirsan shakhsiyaad caan ah sida qoraaga Yuusuf Saciid Xirsi uu qabo guushaasi waxay ku xirnaan doontaa sida ay u abaabulnaato tayada hoggaankeeda barnaamijkeeda siyaasadeed iyo weliba awooddeeda ay ku kasban karto taageero qaran kee ayaa se qaban kara dareenka shacabka Soomaaliyeed ayuu qoraaga Yuusuf Saciid Xirsi isweydiiyey waxaana uu ku jawaabay ma jiro saldhig xogeed oo lagu xaqiijin karo in xal xisbi ama hal hogaamiye uu maanta si cad u hogaaminayo taageerada shacabka dalka oo dhan taageeradu waa isbedeshaa iyadoo ku xiran xaaladda amniga dhaqaalaha olayaasha siyaasadeed iyo weliba doorashooyinka guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxay inta badan ay muujinayaan rabitaan ku wajahan hoggaan leh nabad iyo amni midnimo qaran dowlad hufan shaqo abuur dhalinyaro cadaalad horumar dhaqaale iyo weliba siyaasad aan kala qaybin dhinaca bulshada ku salaysnayn xisbi kasta ama hogaamiye kasta oo si lagu kalsoonaan karo oo u muujin kara inuu arintaasi wax ka qaban karo ayaa leh fursad wanaagsan oo uu ku kasban karo taageero ballaaran waxaana soo gaarsiiyay qormadan ama faaladan Yuusuf Saciid Xirsi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed